بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu kusoo jirnay barashada maadada Elements of Transportation Engineering waxaynu kusoo jirnay chapterka labaad waxaan soo gaarnay casharka labaad casharka kan ka horeeyay waxaan kaga soo hadalnay chapterkan iyo inta uu qaybsamayo yani chapterka geometric design waxaa kala soo sheegnay inaan qeexnay ama definition of geometric design ayaan soo sheegnay sidoo kale waxaan bilownay chapterka qaybtiisa koobaad ee ah factors affecting geometric design yani faktarada saameynta ku leh geometric design ayaynu bilownay waxaan ka soo hadalnay major factors of geometric design yani faktarada waaweyn ee saameynta ku leh geometric design annaga oo soo sheegnay factorka koobaad inuu ahaa speed design oo factor aad iyo aad muhiim u ah oo dhammaan qaybaha uu ka kooban yahay geometric design saameyn ku leh sidoo kale waxaan ka soo hadalnay topography oo ah asagana factorka labaad ee aadka iyo aadka muhiimsan labadaas waxaan soo tilmaamnay inay yihiin major factors of geometric design waxaynu darsigeena caawa uu ku saabsan yahay waxa uu ku saabsan yahay minor factors of geometric design faktarada saameynta ku leh geometric design laakiin ka saameyn yar speedka iyo topography-ga faktarada ayaga waxaa ka mid ah vehicles waxaa ka mid ah human waxaa ka mid ah traffic waxaa ka mid ah environmental waxaa ka mid ah economic insha Allah mid ayaynu u sheegi doonaa hadduu ebeedmo haddii aan ku bilowno vehicle yani vehicle waxaa waaye gawaarida la isticmaalayo ee wadada loo isticmaalayo weeyaan hagaag the dimensions weight of the actual operating characteristics of vehicle influence the design aspects like width of the pavement radius of the curve clearance backing geometric and etc haddii aan intaan si kooban u sharxo yani cabirka uu leeyahay gaariga yani dhererkiisa iyo balliciisa gaariga culayskiisa yani action waxaa la yiraahdaa halka candho yani waxaa weeye unit lagu xisaabiyo traffic-ka yani baabuurtaysi u kala weyn yihiin waa say u kala action weyn yihiin actionna waxaa u naqaan anaga Soomaaliyaan candha la yiraahdaa koonfurta maqaanaga waqooyi wuxuu yaqaanaan yani waa birta isku xirta labada taayar waxaa la yiraahdaa candho ama action marka labada taayar birta isku xirto waxaa la yiraahdaa action marka hadba sidii gawaarida u kala action weyn yihiin ama yani u kala action badan yihiin way u kala dheer yihiin ama way u kala weyn yihiin marka waxaa kale yani operation characteristics habka loo operate gareynayo gaariga yani manual miya ma automatic ba ma waxa weeye sheeg marshooyin kala duwan buu ku kacaa hadda mesela cagafyada ama heavy machineska iyo gawaarida isku characteristics maaha yani operating characteristics uu kala duwan yahay dhammaan marka waxay influence ay ku leeyihiin designka yani aspect of design ay saameyn ku leeyihiin tusaale ahaan pavement-ga ku noqonayo radius of curve yani gacanka maxaa la jiray curve-ga backing up kala sameeynayo waxyaabahaas dhan bay saameyn ku yeelanaysaa waxaan filayaa in la fahmay a design of vehicle which has standard weight dimensions and operating characteristics are used to establish highway design control to accommodate vehicles of the designer type يعني gawaarida iyo siday u kala duwan yihiin yani maxaa la jiray dhererkoodii ballacooda dimensionka ka wadaaye habka loo operate gareynayo oo marshooyinka iyo automatic iyo cagafyada iyo kuwa kale wixii la halmaalo yani waxaa lagu dhisaa designka highway waxa loo yaqaano established highway design controls yani designka markii control lagu sameynayo waxyaabaha la qaato ayay ka mid tahay baabuurta ama gawaarida iyo dabeecadooda yani design type of vehicle waxay saameyn ku leedahay geometric design ta ku soo koobo okay waxaa kale oo factor ah oo laakiin minor factor ah human yani human waxa laga wadaa dadka bini aadamka ee wadada isticmaalayo marka see human ay ugu yeelanay ay u tahay factor ama see saameyn ugu leedahay geometric design
يعني هذا كوسو كوبو human كان laga hadlayo waxaa weeye waa darawalka iyo dadka goynaya wadada ama marshabeedka isticmaalaya along the road. Okay, the importance of human factor that influence geometric design are the physical, mental and psychological characteristics of the driver and pedestrian like reaction time. يعني waxaa laga wadaa يعني waa muhiim qofka bini aadamka factor يعني factor ahaan ayuu muhiim yahay kaas oo يعني influence geometric design kaas oo يعني influence ku leh ama saameyn ku leh geometric design. how say why physical يعني physically ahaan مثلا darawalka inuu aad u gaaban yahay يعني waxaa yaraanayo height-ka loogu talagalay waxaa loo yaqaan eye level waxa la jiro oo markii laga hadlayo waxa loo yaqaan side distance-ga waxaa la xisaabiyaa eye level iyo object instruction level-ka ayaa la xisaabiyaa marka qofka inuu aad u gaaban yahayna saameyn bay ku yeelataa inuu aad u dheer yahayna saameyn bay ku yeelataa yani waxaan ka hadlaynaa darawalka mental qofka inuu yani caafimaad qabo oo maxaa la jiray uusan khamraysnayn ama maan duurisnayn ama uu waalnayn mentalna muhiim u tahay. psychological qofku inuusan mashquulsanayn oo si psychological uu isugu buuqsanayna saameyn ku yeelataa yani kuwaas marka waa characteristics of darawalka. sidoo kale waxaa factor kala noqon karo yani dadka wadada goynayo wadada waxay leedahay meel laga goynayo oo loo yaqaan pedestrian crossing ama zebra crossing waa dadka meesha ka goynayaan marka qofka curyaanka oo kale saameyn ku yeelan karaya qofka iyo sheeg maxaa la jiray waayeelka saameyn ku yeelan kara iyo caruur saameyn ku yeelan karaan yani dadka goynaya iyo sidoo kale waxaa kale oo saameyn oo ay kan dadka wax ku isticmaalaan yani wax loo yaqaan walkway ama sheeg anagu waxaan la marshabeed roonka furadaana marshabeed dhahna markii socdaana saameyn ku yeelanaysa marka human waa one of the minor factors of geometric design. hagaag hadaa hore u sii socdo qodobka saddexaad ee factorka ku leh geometric design waxa weeye waa traffic hadaa ku soo koobo yani waxa loo yaqaan road capacity ama traffic volume yani waxa weeye waana wadooyinka waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin waaye يعني geometric design marka la sameynayna saameyn bay ku yeelanaysaa haddaan si kooban kugu sharxo isku mid ma ahan wadda ay isticmaalayso maalintii 100 baabuur iyo wadda ay isticmaalayso 1000 ama ka badan baabuur isku design ma noqon doonto geometric design-ka marka waa traffic volume-ka ama road capacity-ga ayaa waxaa laga wadaa factor-kan uu ka macno yahay traffic maxaa fiican fahamtay yani waa kala duwanaanshaha wadooyinka iyo sida ay mashquulka u yihiin. It will be uneconomical to design for road type peak traffic flow يعني traffic flow wadada loo isticmaalayo yaa waxay noqon kartaa economical to design يعني peak traffic flow يعني waxaa laga wadaa qulqulka gawaarida ee wadada isticmaalayo ayaa loo yaqaanaa. Therefore a reasonable value of a traffic volume is selected as the design hourly volume which is determined from the various traffic data collected. يعني waxaa laga wadaa reasonable value of traffic volume يعني qiimaha yani inta yani isha wadada gawaarida isticmaalayso mashquulka wadada ayaa la doortaa markii loo xisaabinayana yani habka loo doorto ama loo xisaabinayo waxa waaye hourly volume yani halkii saac imise baabuur ayaa marto maxaa la jiray wadada markii noocaas ayaa loo xisaabiyaa which determined kaasoo lagu jaangooyo from various traffic data collected ayadoo lagu jaangooynayo ama loo qiyaas qaadanayo daatadii la soo collect garay yani waxa laga wadaa waxa jira laba qaab ee loo xisaabiyo traffic volume-ka ama ay sheeg road capacity-ga waxa loo yaqaan AADS yani annual average daily traffic wala xisaabiyaa sanadkii imisa baabuur ay isticmaalayso ama daily average traffic ama maalintii imisa ay isticmaalayso inta ayaa labaas qodob baa laga wadaa fahmaysaa يعني maalintana waxa lagu soo saaraa halka saac imisa baabuur ay isticmaalayso kadib average la qaataa yani markii aad garanaysa hal saac gawaarida isticmaalayso wadadan
waxaad soo saari kartaa maalinta inta isticmaalayso haddii aad maalinta soo saari kartana waxaad soo saari kartaa sanadka inta isticmaalayso sidaas ayaa laga wadaa marka geometric design is thus based on this design volume ama capacity yani marka geometric design waxaa lagu jaangooyaa ama loo qiyaas qaataa traffic volume kaas waxaan filayaa in la fahmay yani saameynta ay ku yeelan karto hadaa kuu soo koobo yani wadada mashquulkeeda waxay saameyn ku yeeltaa geometric design oo say ugu yeelanaysaa yani haddii wadadu ay heavy tahayna waxaa la badinayaa capacity-ga wadada oo layerska laga dhisaayo ama quality loo dhisaayo waa la badinayaa haddii traffic volume uu yar yahayna waa laga yaraynayaa waxaan filayaa inaad fahmi kartiin okay waxaa kaloo factor muhiim ah environmental ayadana muhiim waaye yani environmentalka waxaan ka wadnaa wadada iyo sida yani saameynta environmentka ku yeelan karto oo maalan qaylada gawaarida iyo sheeg maxaa la jiray hawada si u dhaqaynayaan iyo wixii la halmaalo weeyaan factors like air pollution yani hawada inay pollution ku sameeyaan noise pollution qaylada yani air pollution waa markii baabuurta ay salbatooyada qiiq ay sii deynayaan iyo wax ka baxay weeyaan oo matoorada ka soo baxayo noise pollution waa baabuurka guuxiisa iyo hoonkiisa iyo wixii la halmaalo waa should be given due to construction in the geometric design of road yani marka waxay saameyn ku yeelataa considerationka markii geometric design la sameynayo waxaan filayaa factorkaasna inuu cad yahay way badan yihiin factorada laakiin afartaas aan kusoo koobiya dhaqaalaha jira economic loo loo fiiriyaa marka afartaas waxaan filayaa inay inaaf yihiin haddii aan hore usii socdo party 2 qaybta labaad ee chapterka qaybtan waxaan kaga hadli doonaa classification of roads wadooyinka iyo kala duwanaanshahooda ayaan kaga hadli doonaa this is part 2 yani part 1 waxaan kaga soo hadalnay factors affecting geometric design qaybtaana waxaan uga hadli doonaa classification of roads okay classification of roads classification of roads is a system that categorizes roads based on their function and location. This approach helps to organize and prioritize road maintenance and construction, making transportation more efficient and safe. يعني transportation وحكوا شيء classification of roads maxay noo faa'iido leedahay oo jabtarkan muxuu yani nooga dhigan yahay waxa uu nooga dhigan yahay waa system aan ku kala soocayno aan ku kala soocayno wadooyinka iyo noocyada kala yihiin oo kala garan karno wadada noocaas waaye taasina waa noocaas taasina waa noocaas annagoo ku dhisayno functionkeeda iyo waxa loo isticmaalayo yani wada luuq wada xaafadeed uma isticmaali doono gawaarida high speedka iyo locationkeeda yani meesha ay ku teelana waynu u fiirinaynaa maxaa kaloo marka approachka maxaa weeye maxaysan naga saacidaysaa kala soocitaanka ayaga waan garanay yani functionka iyo locationka oo fiirinay marka waxay naga saacidaysaa inaan organize garayno ama inaan ahmiyad aan kala siino awlawiyaad waxa loo yaqaan prioritize yani muhiimadda inoo kala leeyihiin yani isku muhiim ma ahan wadada sheeg feeder roads oo xaafadaha dhexdooda iyo wadada maxaa loo yaqaan main roadka oo isku xoreyso maxaa la jiray sheegeen ama dad si kala kugu dhigo state highway isku mid ma ahan local waxa loo yaqaan local streets isku mid ma aha yani wadooyinkan waaweyn waxa loo yaqaan national highways ka wuxuu kor u qaadaa dhaqaalaha dalka state highways kale wuxuu kor u qaadaa dhaqaalaha dalka halka local streets kana kaliya laga faa'iido in access labada guri la kala goosho waxaan filayaa marka in la fahmay muhiimadda ay noo leedahay marka maxaa la jiray classification of roads marka in yani in la prioritization ama awlawiyaad ama ahmiyad loo kala siiyana yani kala dhismahooda anagoo u baahan wado dhaqaalaha dalka kor u qaadayo dhismayna wado luuq oo xaafadaha ah waxaan filayaa in la fahmay okay marka ilaa dhowr meelood dhowr jiho ayaynu ka fiirinaynaa kala soocitaanka aan kala soocayna wadooyinka mar waxaan fiirinaynaa based on materials yani qalab noocee ah ayaa ka dhisanta wadadan mar kale waxaan fiirinaynaa location ama function yani locationka meesha ku taalo ama functionka wixii qabanayso labadaas mid waaye insha Allah u tagi doonaa waxaa kale oo ka fiirin doonaa traffic volume
anagoo kala sooci doonaa anagoo u fiirinayno traffic volume waxaan kaloo ka fiirin doonaa rigidity fahmaysaa yani rigidityga ay ka kooban tahay wadadaas ayaynu fiirin doonaa mid ayaa ugu tagi doonaa insha allah haddaan ka bilowno marka midka koowaad classification of roads based on material maxay ka dhisan tahay wadada markii aan u fiirino aan kala socno qodobka koowaad earthen roads yani wado iska bacaada waa wado bacaada مثلا local street oo kale waa wado iska bacaada gravel roads wadooyin yani gravel ah oo maxaa jira cadda laga dhigay maram roads wado ayadana yani waa meesha gravelka iyo maramka oo laba material la isticmaalo tana waxa waa maram yani waa size ka yar gravelka waaye ayadana maram baa la isticmaalay waa ciidan guduudka oo waxa la ay sheeg ka yar size ahaan gravelka yaa la isticmaalay adoo labadaanba waa la dhisay laakiin waxa weeye ma gaarsino laami iyo concrete tanna lama dhisin waaye earthen roads waxa laga wadaa waa wadooyinka luuqyada xaafadaha lama dhisin tanna waxa weeye gravel roadska waa la dhisay laakiin ma saarna bitumen ama asphalt ama concrete tanna sidoo kale ayadana waa la dhisay qodobka afraadna waxa weeye bituminous roads waa wadooyinka daamurka leh daamurka madowga ah waaye concrete roads waxa weeye wadooyinka shubka ah sida bridge-yada kale wadooyinka loodka culus qaaday kuwa dekedaha ka soo baxa ama la isticmaalaa marka shantan qaybood ayaynu u kala qaybinaynaa wadooyinka waa marka aan fiirino based on material intaas ayaan kusoo koobayaa darsigeena caawa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu